بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمنا وزدنا علما. اللهم آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ummahaatulkhayr, qolka ummahaatulkhayr iyo walaalaha igala socdo Facebook live, waxaan marka hore idinkugu salaamayaa salaanta salaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qolka ummahaatulkhayr, duruustii ku socotay oo ku saabsanayd mowduucii ahaa xuquuqu zawjayn oo aan ku dhex jirnay xuquuqda xaaska ay ninkeeda ku leedahay. waxaan ku soo ururiyey 4 xuquuq oo noo hartay. 4taas xuquuq ayaan waxaan dhammaystiraynaa caawa hadduu ilaahay yidhaahdo. kadib usbuuca soo socdo insha allah kitaabkii oo khaasatan qisadii iyo tafsiirkii taxliiliga ahaa ee suuratu yuusuf aan dhammaystiri doonnaa insha allah. waa sii wadi doonnaa. waxay inagu qaadan doontaa saan u malaynayo iyadana 2 ilaa 3 usbuuc inaan dhammaystirno insha allah. xuquuqda waxaan ka hadlaynay xaasaska ay ku leeyihiin ragga. waxaan soo gaarnay 4 xaq ayaan caawa ka hadlaya. kan koowaad waxa waaye xaqa isku qurxinta xaaska ay ku leedahay ninkeeda inuu isku qurxiyo ama ninka inuu isku qurxiyo xaaskiisa. xaqa labaad aan ka hadlaya caawa waxa waaye in baahida xaqay u leedahay in baahida jiifka ama sariirta in uu buuxiyo oo xaaskiisa uu buuxiyo. xaqa saddexaad waxa waaye oo caawa aan ka hadlayo in xaqa magacyo badanaa culummada ay u sameeyaan. qaar mulaatafay dhahaan, qaarna waxay dhahaan mulaacibatu azawja oo loola jeedo maaragtay xaqa in uu la farxo, la kaftamo, uu la furfurnaado oo guriga uu ka dhigo guri jaceyl iyo raxmad ku dheehan. xaqaasi gaarka ah oo ah xaqa kaftanka iyo la ciyaar xaaskiisuu la ciyaarayo waa xaqa saddexaad. xaqa afaraad waxaan ka dhigay 2 xuquuq oo iswadata oo ah xaaskiisa inuu malo wanaajiyo isla markaasna inuu asturo xaqa ay leedahay. inuu malo wanaajiyo isla markaasna inuu asturo. marka saddexdaba aan taataabanno. xaqa ugu dambeeya qiso ayaa ku jirta. qisadan waa idiin sheegi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. xaqa isku qurxinta saan ula soconno, bini aadamka wuxuu jecel yahay markasta indhihiisa inay ku dhacaan wax farax geliyo, wax qurux badan oo farax geliyo. insaankaasaas u samaysaan. waa tabiicatul insaan. ninka wuxuu jecel yahay inuu arko xaaskiisa oo qurux badan oo labisan oo may maqlaysaan? waayahay. ninkii sidoo kale wuxuu maaragtay ninkii wuxuu jecel yahay xaaskiisa inay quruxsan tahay. halkan waxaa loola jeedaa labiska, nadaafadda, maaragtay iyo wax alla wixii tasayun ay samayn karto oo dhan. marka isqurxintaana haweenta waa in gurigeeda dhexdiisa ay isku qurxisaa, ninkeedana isku qurxiso. marka waa ka soo hadalnay taas. marka isagana tii oo kalea lagu leeyahay. hadal cajiib badanaa jiro cabdullaahi ibnu cabbaas uu dhahay. hadalkaasa idin soo guurinayaa. wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas isagoo sharxayo aayad qur'aan ah wuxuu yidhi innii
la uxibu waxaan jeclahay wuu dhaartay wallaahi waxaan jeclahay an atazayana inaan isku qurxiyo macnaha lisawjatii xaaskayga inaan isku qurxiyo ayaan jeclahay u dhahay kamaa uxibu an tatazayana lii saan u jeclahay iyada inay iska kee qurxiso anigana waxaan jeclahay in aan isku qurxiyo u dhahay markaasaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur'aankiisa wuxuu ku yidhi suuratu lbaqara aayadda 228 walahunna mithlu aladii calayhinna waxay xaq u leeyihiin haweenkii wixii iyaga lagu lahaa wax la mid ah iyaga soo lagama rabo inay isqurxiyaan inay isbarfuumeeyaan inay iscatareeyaan in wax alla wixii qurux ilaahay uu siiyo o dhan inay muujiso oo ninkeeda u muujiso isagana saasoo kale laga rabaa marka cabdullaahi ibnu cabbaas markuu hadalkiisa dhahayay nin ayaa arkay isagoo aad u labisan oo timahana si qurux badan uu u soo shalleeyey oo markaasna saliidna uu soo mariyey caraf badan ka muuqda xaggii u socotaa la yidhi maanta marka wuxuu yidhi meelna uma socdee xaaskaygaan u socdaa oo maxaaskaasaan laysugu qurxiyaa markaasuu bixiyey jawaabtan oo ah wallaahi aan ku dhaartuu dhahay waxaan jeclahay xaaskayga inaan isku qurxiyo sidaan u jeclahay iyada inay iska kay qurxiso waayo ilaahay ayaa qur'aanka wuxuu ku yidhi walahunna mithlu aladii calayhinna marka halkan marka xaqa isqurxinta oo xaaska ay leedahay waa marka waxaa la yidhi dhar noocee uu ninku isku qurxinayaa culummada waxay yidhaahdeen dharka iyada ay jeceshahay sidaas dee sheekada noqota macnaheed waxaa waaye shoobin markuu aadayo wuxuu asaga jecelyahay keliya inuusan soo gadan in uu xaaskiisa isaga israacaan oo markaasi dharka nooca iyada ay jeceshahay inay ku aragto inuu soo gato waa xaqi iyada leedahay marka dharka qaarkood ay dhibsanaysoo kale inuu ka ilaaliyo waayo indhaheeda inay ku dhacaan marka waa soo ururinaynaa maaragtay qodobkan iyo wakhtiga dartiisa iyo qodobada kaleba gabadha ninka waxay ku leedahay xaq ah ama xaaska waxay ku leedahay ninkeeda xaqa isqurxinta sida iyada oo laga rabo guriga markay joogto ninkeeda inay isku qurxiso khaasatan weli wakhtiyada gaarka ay isku yihiin oo kale inay isku qurxiso ayaa laga rabaa xaqa ku xiga waxaa waaye oo labaad oo caawa aan rabno inaan ku dhammaystirno casharkeenna hadduu waqti noo soo harana su-aalaan furaynaa haddii waqtigu naga dhammaadana waa raalli ahaanaysaan marka su-aalaha usbuuc kaleaan ka dhigaynaa waxaa waaye xaqa waxaan u bixiyey buuxinta baahideeda khaaska ah ee sariirta la xiriirta halkan culummada waxay yidhaahdeen maadaama ilaahay qur'aanku ku dhahay aayaddii 228 suuratulbaqara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhahayo walahunna mithlu aladii calayhinna haweenkii wixii laga rabay iyada waxaa laga rabaa ninka inay deeqsiiso ninka inay baahi tirto markay timaado sariirta isagana ninkiina saasoo kalea laga rabaa halkaa marka waxaa ku qarsoon ayay yidhahdeen culummada oo ku jirta kow inuu xagga sariirta inuu ka baahi tiro laba waxay dhaheen waxaa ku jirto baahidaas waxay noqonaysaa inta ay u baahan tahay ayuu baahi tiraaya markaas nafta wax badan ay u baahan tahay markay ooman tahay in la waraabiyay u baahan tahay marka ay gaajeysan tahay in la quudiyay u baahan tahay markay xagga shahwada timaadana shahwada in uu haweentii ninkii shahwadeedii inuu damiyo waa lidaalika xadiis waxaa jira oo lasoo qaato aayaddaas horta waa kow aayaddaas waa xaqaasi oo hadda aan ka hadlay oo ah in baahideeda gaarka ay sariirta inuu buuxiyo sida iyadaba laga filayo inay samayso aayaddaasaa caddaysay 228 suuratulbaqara walahunna mithlu aladii calayhinna waxay xaq u leeyihiin wixii iyadana laga rabay iyada waxaa laga rabaa ninka inay ku deeqdo ku buuxiso u dhammaystirto baahi tirto sariirta markuu ugu baahdo sidoo kale isagana waa laga rabaa xagga wakti waxaa layidhi wakti intee la eg
culummada waxay dhahaan waqti kuma xirna, baahideeday ku xiran tahay. laakiin waxaa jirto xadiis ay culummada soo qaataan, wa ina liahlaka calayka xaq, xaaskaaga xaq ayay kugu leedahay. xaqaasaa waxaa ka mid ah sariirta baahideeda in uu u dhammaystiro qaabka iyo siday u rabto. waxaa kaloo culummada halkan ay yidhaahdaan waqti ayaa jiro uu cafis ka yahay howshaasi sariirta, waa waqtiga uu safarka uu ku jiro iyo markuu cudurdaar haysto. cudurdaar marka waxaa lagu fasiray hadduu xanuunsan yahay. qodobka saddexaad oo haweenka xaq ay ku leedahay waxaa ka mid ah in uu la kaftamo, la ciyaaro, waqti ay isla qaataan oo ay wada tamashleeyaan. weli halkan waxaa laga hadlayaa ciyaar. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi kaana yatalataf maca zawjati, macnaa maca aswaajihi, xaasaskiisa rasuulka calai salaam wuu la ciyaari jiray, wuu la kaftami jiray, waqtiguu la qaadan jiray. guri wuxuu ka dhigi jiray guri oo maaragtay nool. lidaalika caaisha ayaa waxay ka sheekaysay radia allahu tacaala canha, waxay dhahday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtiguu ila qaadan jiray. waxay dhahday maalin maalmaha ka mid ah magaaladaan aadnay, markaan soo laabanaynay calayhi salaatu wasalaam, marka ninka xaaskiisa inuu la baxo ah inay magaalada wada aadaan, waxaan soo agmarnay ee dhahday masaajidka oo ay ku ciyaarayaan niman alxabasha ah. alxabashan waxaa la yidhahdaa dhulkan etoobiya. culummada qaarkood waxay isku qabtaan suudaan iyo etoobiya iyo eritrea iyo qaara soomaali ku soo dara. marka waa dadkaasi isleh oo dhulkaasi degan. marka qaar ka midana Maka iyo Madiinay deganayeen. marka waxay dhahday waxaa dhacday iyagoo ciyaarayo aan arkay, oo ciyaar aad u cajiib badan. markaasaa nabiga wuxuu yidhi ma fiirsan karaa. waxay tiri nabiga way weydiisatay, way codsatay, ma fiirsan karaa. markaasaa rasuulku wuxuu yidhi haa, waa fiirsan kartaa wuu yidhi. markaasaa waxay samaysay dhabankeedii ee dhabanka rasuulka saas u saartay. markaasa ciyaarta iska fiirsanaysay. marka waa public la soco. hadda maanta haddii la arko nin oo sheekh ah ama maaragtay oo xaaskiisa gacanta saas u haysto ay wada qoslayaan, ayaa waxaa soomaali dhaqankeeda marka loo fiiriyo waxay leeyihiin, markii dhallinyarada ay sameynayaan waxyaalo qaarkoodna wax uma arkaan, laakiin waxay leeyihiin alla ma xishoonayaan. marka fiiri, nebiga meel public ah dhabankeeda inay dhabanka u saartay, manaa dhabankeedii dhabankiisa u saartay. markaas iska fiirsanaysaa ciyaarta, waa meelay ka fiirsanaysay nimankii ciyaaraya. markaas nabiga calayhi salaam ilaa iyada ay maaragtay ka dharagtay ciyaarta ay daawanaysay, wax haba yaraatee oo joojin ah ama inuu ku riixo oo uu bushkareeyo ma samaynin. oo kemiya ma bogotay. caaisha waxay dhahday haa, waa bogtay, aada u mahadsan tahay. markaasay baxeen. marka waxaa dhici jirtay dhahda caaisha iyadoo ka sheekeynayso, gurigaan ku ciyaari jiray dhahday. guriga markaan ku ciyaaro gabdho aan asxaab nahay oo dariskaan la ciyaari jiray. markaasaa qof dhallinyarana way ahayd. markaasaa waxay dhahday markaan ciyaarayno nabigaa soo geli jiray dhah. markuu soo galo iyadoon la filaynin, ama gabdhihii markay arkaan isagoo soo socdo inay ordaan, isagana wuu arki jiray, ama waxay ku dhuwan jireen meel oo sitaar oo kale, daah oo kale ku dhuman jireen. markaasaa nabiga markuu soo galo, markuu dhoola caddeyn jiray rasuulka calayhi salaam. markuu dhoola caddeeyaa, caaisha u dhoola caddeeyaa, wuxuu dhihi jiray hadda kabara nin hadduu arko xaaskiisa oo gabdho kale la ciyaarayso annaga nimanka soomaalida maanta oo guriga, ama ha ahaado iyagoo wada buraanburaya iyo iyagoo wada boodboodaya iyo waxaa laga yaabaa inuu caroodo maxaa haweenkan guriga keenay iyo wixii la mid ah. markaasi waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu quslay. markuu quslay ayaa caaisha wuxuu yidhi ha soo baxeen, ciyaartiina iska wata. marka halkaas waxaa ka fahmaysaa marka in xaaskiisa uu la kaftami jiray, uu la qosli jiray calayhi salaatu wasalaam. xadiis kale rasuulku waxaa la weydiiyey guriga markuu joogo muxuu samayn jiray. wixii anahaa
rag haween maaragtay ay u sameeyaan ayuu samayn jiray. markaasaa waxay ku dartay hadalladiisa oo uu ka mid ahaa, hadalladeeda waxaa ka mid ahaa wuu nala ciyaari jiray, wuu nala kaftami jiray. marka way badan tahay tusaalooyinka, waqtigaan noo saamaxaynin, laakiin tusaalooyin badanaa jira oo aan idinla qaybsan lahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray. 14 waxaan ula jeedaa qodobka 4. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay in uu tarbiyeeyo asxaabtiisa, wuxuuna ku tarbiyeyn jiray qur'aanka. marka qodobka 4 waxa waasaan malada ninka xaaskiisa inuu u mala wanaajiyo, uusan mala xumaynin. markaad u malaynaysa xaaskaaga aad wax ka malaysanaysid suu'i dhanni lama ogola. horta dadka guud oo dhan diinta islaamka waxay amartay, ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyahay في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إلهي سبحانه وتعالى وحولي مركا مؤمنين هداتهين كفوا هذا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن ضدك ما ليستان هبلاي وحاسكو في كريسة، هبلاي وحن لينا يا أما ما ركت هبل وحن لينا يا إنه خائن يهن لينا يا هبلاي وحن لينا وحقرنيس waxaasoo malaxumada ahoo dhan diinta way diiday. ina bacda dhan ithm. qof inaad wax malaysana waxaa laga dembi waay, waa tuhum. qofka iska tuhmaysaa adoon xaqiiqo haynin. lidaalika ilaahi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu ku tarbiyeeyey aayaddan siiba in qofka mu'minka ah dadkoo dhan uu mala wanaajiyo, ilaa duruuf inay timaado maahan. culammadu waxay dhaheen hadday timaado duruuf oo maaragtay dhibaatada iyo fitanta ay badan tahay, markaas qofku ka shakin karaa. markaas waxaa la diidayaa laakiin shaki aan sal lahayn ama duruuf aysan keenin. marka ninka xaaskiisa gurigay kula joogtaa, inaad mala wanaajiso marka waxaa ku jirto, iyo inaad asturto. wax ceebaad ku aragto inaad asturto. qisa idin kaga sheekeen doonaa oo nin sheekayga aan ka dhagaystay oo qiso dhab ah oo dhacday. ninka xaaskiisa inuu asturo, ninka xaaskiisa inuu mala wanaajiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa caado u ahaan jirtay, asxaabtan uu ku tarbiyeyn jiray xitaa in oo wixii haddee wax laga yaaba xitaa inay wax malaysan karaan oo si xun ay u fikiri karaan, xitaa inuu markiiba uu ka hortago. مثل maalin xaaskiisa xaas ka mid, habeen xaaskiisa xaas ka mid uu la taagnaa, masaajidka banaankiisa ahayd, masaajidka laga soo baxay. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu la taagnaa, niman asxaabtii ka mid ah ayaa dhinacaas soo maray. markay arkeen isagoo xaas la taagan, socodka way bedeleen, marka way dedejiyeen. markaasaa uu u sheegay rasuulku wuxuu dhahay qofkaan la taagnahay waa xaaskayga. marka wuxuu rabaa inaysan maskaxdooda shaydaanka uusan wax gelin. nafta iyo shaydaanka waa khatar. ina shayطaana lakum caduw. shaydaanka waa cadow, dadku isku diraa. weli kuwa isqaba meelahaasu ka raadiyaa dulduleelo oo madaxay isugu dhici karaan. naftana ina nafsa la amaaratun bisuu. naftana iyadana xumaan tilmaanto waaye. lidaalika rasuulka calayhi salaam wuxuu ka magangeli jiray naftiisa sharteeda. duco ayaa jirta rasuulku una baray oo qofku waa inuu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min shari nafsi. ilaahu adaan kaa magan galay nafteeda sharta ay wadato. nafta iyadoo dhan ma wada aha, saliim ma wada ah, sharay xambaarsan tahay. shaydaankaa la xiriiro, adduunyaa la xiriiro, asxaab xunaa la xiriiro. calaa kulli xaal xaaskaaga malada u wanaaji. haddaad ceeb aragta maxaa samaynaysaa marka? ceeb haddaa aragta inaad asturto waa. xadiis ayaa jira rasuulka calayhi salaam uu dhahayo man satara mu'minan, qofkii mu'min astura, waa mu'minkii caamka ahaa waa. ceebaad ku aragtay waad asturtay, ilaahay qofkaas wuxuu asturayaa maalinta qiyaama oo qofka uu jecel yahay dadka ceebtiisa. waa maalintaas, waa maalinta ceebaha waa. maalinta ceebaha la muujiyo oo ay soo baxaan waa. maalintaas ceebtaada inay banaanka soo baxdo ma jeclid. ilaahay wuxuu dhahay qofkii astura, qof mu'min ah ceebtiisa, anna ceebtiisa asturaya maalinta qiyaamaha. qisadaan dhegaysta, nin sheekayga aan ka dhagaystay wuxuu yidhi waxaa dhacday nin iyo naagtiis
aroosaa la qabtay meel xaafad ka mid a xaafadihii. arooskii markii habeenkii lasoo hooyday ayaa ninkii waa soo kookoobaya sheekada xaaskiisii markii ugu horeysa uu la kulmayey oo sariirta uu kula kulmayey oo uu dhinac fadhiistay ayaa waxay tiri waxaan rabaa caawa wayna is yaqaaneen macnaha gabadhan waxay ka dhalatay famil la yaqaano isla markaasna wiilka iyo gabadhana aqoon hore oo doorasho isdoorteen ayaa meesha ku jirtay na wiilkana wuu jeclaa iyadana way jeclayd waa la isjeclaaday maxaa meesha marka habeenkii arrin cusubaa timid arrinta xaggee ka timid waa arrin ceeb ah waaye gabadh dhankeedii gabadhi waxay dhahday maanta ninkaygaa tahay anna caawa waxaan noqday naagtaadii xaaskaadii wax badan oo xuquuqaan isku leenahay waxay dhahday waxbaan rabaa caawa inaan kaa codsado intaadan i taaban marka adna waxaan kaa codsanayaa inaadan igu diidin aad iga ogolaato hadal culusay isticmaashay hadalkaas maxaa waaye waxay dhahday waxaa jirto arrin aadan ku farxi doonin caawa haddaa maqasho laakiin markaan kuu sheego waxaan kaa codsanaa inaadan nixin waxaan kaa codsanayaa ilaahay dartiisa fiiri kelmadii isticmaasho ilaahay dartiisa inaad ii cafiso oo aad ii asturto oo isla markaasna cidna arrintan aanan ogaan adiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala maahayn adna ilaahay waxaan kuu weydiinayaa inuu ku asturo adduun iyo aakhiro hadalkaas waa culus yahay wuxuu dhahay maxaa samaysa oo dembi weyna waxay dhahday aniga bikra ma ihi khalad aan samaynayn wuu jiraa oo aan ku dhacay khaladkiina wuxuu sabab u noqday uur inaan isku arko anahaa uuraan leeyahay marka waa uur oo bil oo kale ah marka waxay dhahday cid og ma lahan mana rabo familkayga inaad ku noqoto aad dhahdo waxbaad ii soo qariseen anna ma raba inaad i qabsato aad dhahdo maxaad iigu sheegi weyse waxaan rabaa ilaahay dartiisa inaad iska kay cafiso inaan kaa qariyey intuu nikaax dhicin ka hor laba inaad markaad i cafiso kadib arrintan uurkan inaad i asturto maadaama bilow uu yahay oo dadna aysan arkin anaa dadna aysan ka war helin cidna inaysan ka war helin waxaan kaloo kaa codsanayaa in nolosheeda aan kula dhammaysto si aan naloo tuhmin haba yaraatee oo nin inaagsi aan isku ahaano waxaan kuu ballan qaadayaa maanta wixii ka dambeeya qaladkaas iga dhacay mar dambe inaan samayn doonin ilaahayna u toobad keenay ninka wuu naxay wuu welwelay xaas gabar bikruu filaayay bikra ma ahan gabar wuxuu filaayay cafiifad ah oo dhoorsoon ma dhoorsana dembigii gashay zinay samaysay calaa kulli xaal wuxuu go-aan ku gaaray indhihiisa ilin ayaa ka buuxsantay muuqaalkiis waa isbedelay haddana wuxuu go-aan ku gaaray wuxuu dhahay ilaahay dartiis aan ku cafiye u dhahay arrintaas waa adag tahay rag inay sameeyaan xaq miyaa oo xaaska igu leh inaad asturto haa waa xaq laakiin culammada qaar waxay dhaheen haddii uu qoftay haddii dembi ay samayso oo dembigaasi oo ay samaysay ee wax ka qariso uuna xaq u lahaa inuu ogaado arrintaas wuu ku furi karaa hadduu rabo laakiin waa isagaa ikhtiyaarkaas leh calaa kulli xaal isaga wuxuu doortay ikhtiyaar ah ilaahay darti inuu asturo ilmahaas inuu ka fikiro wuxuu ka samayn lahaa marka calaa kulli xaal sheekadaas soo kookoobo gabadhii waxaa dhacday uurka waa sii weynaanaya waa la socotiin waxay markaa in dadka ay fahmaana ma rabo marka wuxuu sameeyey xaafadda way ka yara dheeraadeen gabadhii wuxuuna rabaa in haddii la ogaado xitaa ilmo inay dhashaan ee meeshay ka soo baxaan ilmahaasi si loo yidhaahdo ilmahaasi ilmo xalaal waaye qaab
oo dadka aysan ku fahmi karin wixii dhacay oo dhan uu rabaa in wax u sameeyo marka qorshe uu sameeyey qorshaasuu sameeyey waa sidaan wuxuu sameeyey xaafaddii ay deganaayeen aan ahaa qof maalintii habeenkii dhalaysay qof umulisa ah uu banaanka ka keenay qoftii umulisa ahaa way maaragtay hawsheedii markay qabatay wiilay dhashay gabadhii wiilkii markay dhashay isaga wuxuu rabaa marka qorshe uu samaystay inuu fuliyo laakiin iyada waxba uma sheegin oo faahfaahina laakiin wuxuu u ballan qaaday hal mid oo ah wax dhibaayo inuusan ku samayn doonin umulisadii markay baxday ilmihii loo qabeeyey oo maaragtay naaskii koowaad ee nuujisay ilmihii markuu saxday habeenkii salaada subax oo waxyar ka dhiman ayaa wuxuu yimid wuxuu dhahay ilmahan waa qaadanaya oo kuu soo celinaya waayahay wuxuu dhahay wax ku dhibaayo ma samayn doono waxaan kuu ballan qaadaa inaan kuu soo celiyo anaana kuu faahfaahin doono waayahay dhaha ilmihii ayaa wuxuu ku soo qaaday beebiga bahalka lagu qaado oo bokiska oo kale ah oo maaragtay kuna daboolay sababta qabow yaraa jiray wuuna soo qaaday masaajid oo xaafadda u dhow uu keenay iyadoon dadka arkaynin masaajidkan markaasi salaadiyaa la galay marka salaada la galay uu horey ka yimid oo weli rakacadii koowaad loo taagan yahay meel geys ah albaabkuu dhigay ilmihii salaaduu dhinac ka galay marka cunugii markuu dhinacaas dhigay cunugii wuxuu bilaabay oohin markiiba markuu ka tegay oohintii uu bilaabay ilma hadda dhashay waaye la socdo aadaa loo maqlay marka imaamkii salaada uu soo dedejiyey wuu soo gaabiyey salaadii subax markii laga baxay wuxuu yidhi ilma oynayaa meeshan ka qaylinayay marka salaaddii waa soo koobay raalli ahaa markaas waxay dhaheen yaa ilmaha wato waa la aamusay markaas kadib qofaa soo istaagay ilmaha meeshuu ka qaylinaya dhankaasuu soo aaday cunugaa meeshaan yaalay ilmaha meesha yaalay yaa dhalay yaa leh waa lasoo wada orday markii lasoo wada orday markaas imaamkia ugu horeeyey imaamka ugu furay waa ilmo dhashay wuxuu yidhi ilmahan ilmo caawo dhashay u egyihiin markaasaa wuxuu yidhi ilmahan ilmo caawo dhashay u egyihiin ilmo lasoo tuuray u egyihiin wax ilaahay dartiisa u qaadanaya ilmahan ma jira ninkiia wuxuu dhahay anaa qaadanayo ninkii sidii uu soo qaatay xaaskii u soo celiyey markuu u soo celiyey ilmihii uu sheekadii u sheegay sheekadii markuu u sheegay oo ah wuxuu sameeyey iyo sababta u qaaday xaafadda marka hadda waxaa la og yahay ninkaasi in ilmo yar oo lasoo tuuray inuu qaatay ilmahaasna ilmihiisa ahaan uu u qaatay isaga xaaskiisa sidiiuu markaasi ku asturay sheekadii aan soo ururiyo waxaa dhacday imaamkii ayaa riyo wuxuu ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam riyada marka riyo cajiib badan ay ahayd nebigu wuxuu ku yidhi ninkii imaamka ahaa guriga masaajidka dariska la ah ee meeshaas ku yaalo guriga sifadiisuu sheegay nebiga calayhi salaam wuxuu yidhi ninka gurigaasi degan waxaan rabaa inaad u sheegto annahu rafiiqii fi ljanna saaxiibkayga qaaska ah oo jannada waayo u tag u sheeg ninka uu soo baraarugay wuu yaabay sababta wax weyn waayo ma ah ahlu janno keliya ma dhihin jannadaa guri loogu dhisayaa wuxuu leeyahay saaxiibkayga oo jannada raalli ahaada saaxiibkayga oo jannada oo gaarka ii ah waayo ninkaas u sheeg calaa kulli xaal maalintii uma sheegin riyadii xoogaa way la cuslaatay ninka maaragtay guriga la tilmaamayo koruu ka yaqaanaa nin oo cibaado badan oo diin badan uu ku tuhmaya ma ahan nin oo culummada ka tirsan ma ahan nin daaci ah ma ahan oo dacwada islaamka faafiya nin oo waxyaalo dadka ay ku yaqaanin maba nin iska caadi waay ninkan maalinta kale habeen kale dan riyadu ku arkay xalay waxaan ku dhahay berito u sheeg ninkaasi fariintan maxaa ugu sheegi weyse waa saaxiibkayga khaaska ee jannada markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuulallah ninkan nin caadi waaye waad i leedahay wuxuu dhahay u sheeg berito isaga weydii
waa rafiiqii fi ljanna. ninkii haddana maalintii labaad xoogay ku cuslaata uma sheegin. habeenkii saddexaad rasuulka alay slam kusoo laabtay xudhaa maxaa uu sheegi weyse, beriti inaad u sheegtaan rabaa. ninkii maalintii kale waa soo baxay, sheekadii u sheegay. marka wuxuu yidhi waxaan 3 habeen isku xigtaa raya kugu arkay, 3 habeen rayadaan kugu arkay, raya cajiib badan waaye. waxaan kuu sheegayaa rayada waxay ahayd, laakiin waxaad ii sheegaysaa adigana darajadan weyn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kugu tilmaamayo booska aad jannada ka gelayso, waxaad ku gaartay. wuxuu yidhi nebiga maanuu nebiga magacaaga, gurigaaga tilmaantiisa. markaas haddana wuxuu tilmaamay ninka magaciisuna sheegay rasuulka islaam, hebel ibnu hebel waa saaxiibkeyga khaaska oo jannada, oo dhinaceega gurigeyga ku dheganaan doono. markaasaa ninkii yaabka badnaa ayaa waxaa la weydiiyey, ama imaamka uu weydiiyey, darajadan maxaa ku gaarsiiyey. markaasaa wuxuu yidhi arrin siraa jirta aniga xaaskeyga oo aan tuhmaya inay sabab u tahay, laakiin cid uma sheegi karo sababtoo ah balan ayaan sameeyey aniga iyo xaaskeyga, ilaahayna isla ognahay arrintaas. markaasaa wuxuu yidhi haddaan qariyo, hadday tahayna qiso oo dadkay ka faa'iidaysanayaan, inaan qiso ahaan aan u sheego say dadka u sameeyaan waxaan wanaagsan aad samayso oo wax weyn ah. marka sheekadiiyo kooban, maadaama waqtiga uu dhammaaday 7:10 inaan joojiyay ahayd, sheekadiiyo kooban waxaan rabaa inaan kusoo ururiyo. wuxuu u sheegay marka, wuxuu dhahay arrin weyn oo aad igu dhib badneed nolosheeda iyo mustaqbalkeyga inaan qariyo oo xaaskeeda ay samaysay oo dembi ah ayaan qariyey. markaas wuxuu yidhi halkaas ayuu yidhi marka inaad saas ku nooleed muddo oo xaaskaaga iyo adiga aan la kala garanayn inay wax idiin dhex mareen, wixii dhan uu sheegay. marka ilmaha dhashay, sababta ilmaha uu ku dhashay, waxay xaaskiisa qarisay. markaasaa wuxuu yidhi waxaad asturtay qof muslimad ah, adna ilaaha ku asturay. astar kulii ma ahan, darajo weyn oo sare ayuu ilaahay subxaana wa tacala ku gaarsiiyey. halkaasaan ku joojinaynaa qisada. wixii su-aalo ahna wiiga soo socdaan u dhigaynaa. meeshaasaan ku joojinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد خير بدن الله يسير الشيخ حسن، جزاك الله خير جزاء. وإياك. أحسن الله إليك. إلهي أكو حتى شيخنا أفضل. إن شاء الله. إلهي أكو بركة شيخنا أفضل. meeshaan ku joojinaynaa ilaa khayr ما شاء الله تبارك الله. wixii su-aalaha usbuuca soo socda insha allah. إن شاء الله ها شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله.